وما فوفين هويدا عرورتيدا لaba sano oo dhulyaal ay u tahay cudur ku dhacay oo gabtay socodkeed hadda saddex caruur ee u jooga waxay quutaan waxay u keenaan dariska iyo bixinta lacagta kirada oo markeeda hore ay ku soo saari jirtay dhaqida xaafadaha daweyn ay hesho ayaa ka dhigi karta qof marka lacageeda ku istaagta helida adeeg caafimaad oo lacag ah ayaa ka dhigaysa mid ay la noolaato cudurkan haddii aanu helin gurmad caafimaad oo degdeg ah oo bilaash ah caruurtani u weyn tahay gabar ayaa waxay rajeynayaan in hooyadad ay arkaan oo hesho caafimaad gabadhan ayaa waxay codsanaysaa oo inta ay ka qabanaysa in hooyadad muruqa ay ku bili jirtay in dareel caafimaad loo fidiyo hooyadaashayna hooyadeena hootana aabeena shaqo ku maqan yahay anagana guriga raashiman oo ay soco karto waa la qaadaa musqula la geynaa xafaaya loo xiraa xafaayadan qolka ku jirta dhareeno dhaqi jirta meelaha oo xaafadaha soo wareegi jirta waxayna keen jirta waxayna keenta cuni jirin mid ka mid ah dariskeeda oo sida dhow la socota ayaa waxay ka sheekeynaysaa xaaladda caafimaad ee hooyadan ee daris ahaan waxay u tareen wixii dhaqtar caafimaad darro waa loo dhintaa marka waxa waa dana dhaqaalaad nada haysanina jirna ay ku haysato il waay waa adigoo dhoofto dhul shisheeye aad tagtay saanaqaysaa maalmo koow dhulka ku ciila dhulka ku ciila waxa dheef la'aan hayso marka guri ay ku noolaato xatee guri buuq badan xatee marka dii aad kulli hooy yiriis loo heli kara xatee wallahi iskaga noolaato kiri xatee iska ilaah bay qabtaa qof haysa xatee ma haysato gabadha hadda arkaysa ilmeed ugu weyn ma qaadi karta xatee يا رب العالمين كتوفة إله هاي إله ذي عافية هاي إله دبك إله كقاضو حوجي ذي إله معناها هكذا يمد كوش خيسته مركلة مركا دعاء إله أقبله هو أيضا وبحثها جرمت دق ده اللي يدي بدبه محمد بوتان يوسف تيفيق رسالة مقدشو